wadaad tixdaana waa wadaad cid u imaanaya neefaa loo qalaa 12 xibnood iyo beerka loo soo saaraya weel loogu soo shubaa waxna waa cunaa waxna qandii ku shubanaa markaasuu wuxuu leeyahay islaanta xoogaa iga xanuunsanay madaxii iyo calooshana meel kale lagu soo shubo wadaadkaas mar dambe cid soo dhaweynaysa iskala faal tuuriyana marka maxaa lii jiray taliye jiitana waxa waaye qofka yiraahda ana iri gadaasheedana cid ka hadli karta ma jirto waxaan ka rabnaa mudana gudoomiye sida sheekhu uu ifiyay waxaan rabnaa ilaahay hanti ku siiyay kambaniyal badan adiga kulamidana waa jiraan laakiin qofku 12 xubnood inuu inta meel dhigto uu yiraahdo madax iyo calooshayaan rabaa bulshada ma dhaqdo waxaan idin leenahay waxa ilaahay idin siiyo ku ekaada waxyaabaha hoos oo bajaajada iyo lamidana shacabka masaakiinta u dhaafa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh hadalka qiimaha badan dhaxalgalka dhabka hadalka ee uu dul istaagay ugaaska yaga ugaas maxamuud cali ugaas oo ku hadlaya magaca salaadiinta sharafta badan ee ka soo qayb galay daafurka saamiyada Somtel aad ayaan uga mahadnaqaynaa annagoo sii gudagelina habsamo socodka munaasabada loogu talagalay bandhiga daafurka saamiyada Somtel ayaa mar kale waxaana leeyahay amin waxaynu maraynaa runta lagu aroorayo abaal ruuxii galana waa gar in loo guda sidaa daraadeed waxaana jeclahay in aan idin la wadaago oo aan hortiina kuman malaayiin uga mahadnaqo xaaji maxamed saciid ducaale oo ah samafale qayb libaax la ka qaatay abaarihii dalka ka dhacay samata bixintii fataadihii dalka ka dhacana gacan ka geystay howlihiisana gaarsiiyay cid walba oo aan leenahay adduunka nabad nagula noolow آخرنا جنة الفردوس الله نقول كل مين أنا قو شرفينا مدحضة دولة فدرالكا يا مدحضة كله هير قبل مناسبة دان سو شرفي سو وينيه أيا وحنا جعل هاي أنا قو حشمينا يا وينينا يا قدرنا يا إسلام مركنا حب ماموس كيسا بروتوكول كيسا أن أدوريو إن أن سي شرف يا حشمد لأن قصو دويو قدومية هياغا قبل كبنادر احنا دوقة مقالة مقدشو ولالك يغا شرف كلا انجنير عبد الرحمن عمر عثمان انجنير يريسو سودو قدومي مهزنة الشيقالو بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها أقل كسرع madaxweynaheenii hore gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka ra'iisul wasaare ku-xigeenka gudoomiyaha dahabshiil wasiirada dhammaan xildhibaanada gudoomiyaha rugta ganacsiga dhammaan mas'uuliyiinta nala joogto bulshada Soomaaliyeed iyo bahweynta Somtel salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxa maanta farxad weyn ah in shacabka Soomaaliyeed loo soo bandhigayo in saamiyo ay ku yeeshaan shirkad Somtel oo runtii aan ognahay sida dahabshiil group ay wadankan uga hana qaaday horumarka u gaartay isla markaana ciziga iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed ay u badbaadiyeen tan waxayna tusaysaa sida daahfurnaanta oo aabayaashii aasaasay oo ugu weyn yahay maxamed ismaaciil ducaale maantana diyaar ku ah bulshada in kaalintooda laga siiyo si daahfurnaan ah ay shirkadda u noqoto shirkad la wada leeyahay shirkad ka qayb qaadanaysa horumarka dalka ka jira marxaladan maanta la soo gaarayna waa marxalad runtii aan oran karno ka tarjumaysa horumarka ballaaran ee ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto ku talaabsanayso maalinba maalinta ka dambaysa intaan hore looga sii socdana waxayna tusaysaa in Soomaaliya cagaheedana isku taagtay horeyna u socotay intaas ka sokow bulshada Soomaaliyeed waxay ku amaanan yihiin sida ay arrimaha ganacsiga iyo horumarka uga gaaraan taasna waxaan runtii iska leh dadkii u istaagay u gartay isla markaana dareemay ganacsigu inuu meel kasta gaaro inay ku xiran tahay bulshada la isku haayo gobol walba degmo walbana ay ka hana qaadaan
taasoo runtii oranaysa Soomaalidu inay wali yihiin dad muxuu ahaa caalamkana la tartami kara lana jaan qaadi kara intaas ka sokow dahabshiil iyo horumarkay soo gaartay waa laga wada dharagsan yahay xilliyadii ugu adkaa 30 sanana soo badbaadisay dhanka xawaaladaha ummadda Soomaaliyeed isku xirkeedana ay keentay in dadkii gudaha joogay ee runtii badbaadaan intaas ka sokow waxaa jira shirkado caalami ah bangiyada adduunka oo ka xoolo badan ka maalgashi badan haddana aan meelaha ay joogto dahabshiil joogin waddan walba tagto caalamka oo arkaysaa siday u joogto sida ay hay'adda institution uga dhigtay ganacsatada waxaan leenahay Soomaaliyeed ganacsato badan oo maalgashi haysataa jira laakiin markay ogaadaan in hay'ad institution laga dhigo horumarka ummadana markaas bay gaaraysaa mar kale aad iyo aad baan idinku hambalyeynaa waxaan rajaynaynaa shacabka Soomaaliyeed fursaddan la siiyayna inay ka faa'iideysan doonaan maxamed siciid ducaale iyo Somtel bahdana oo fursaddan bicisayna ayagana waxaan leenahay ajar iyo xasanaad Allah idinka siiyo aad iyo aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kelmadaha quruxda badan soo dhaweynta garab istaaga iyo ballanqaadka uu gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer Yariiso uu nala wadaagay aad ayaan uga mahadnaqaynaa annagoo ku bogaadinayna kuna hambalyeynayna soo jeedintiisa qiimaha badan mudana gudoomiyaal mudana ra'iisul wasaare ku xigeen mudana madaxweyne mudana yaaliyo marwooyin barnaamijka daahfurka saamiyada Somtel oo qaybo kala duwan leh ayaa markan waxaan jeclahay inaad dareenkiina amaahidaan dulka dhagihiina inoo furtaan isla markaana aan idinla wadaagno tixo suugaana oo qayb ka ah daahfurka saamiyada Somtel waana tixaha loo yaqaan saarka waxaana ku soo dhaweynayaa afmaalka abwaanka yaga Maxamed Cabdulle Cilmi in uu nala wadaago tixda uu kaga qayb qaadanayo daahfurka saamiyada Somtel soo dhawo Maxamed aad baad mahadsantahay بسم الله الرحمن الرحيم صوحن كيغا عدكي سيلها ساركو عن حري منكر كما سابسان Somtel سيدا اي تهان سبنان اوغا حدليا يا سومالاي نغا حسي سيدي كلاوحن لها سيادة اي كنتي ايا ساميغا شركة ايا صفكة انبوحن صقير كنية كبير سوكا سومالي يسيم كذا انقاذن سيدي كلاوحن لها سندو قورتي حنتهاي سبان كنا يحي أبار سارو عميشو جراسة هاي لغرات سدا Somtel inay tahay sidoo silica ay suulisaa su'aalu kama jirto saxiix weeye hadalku ya sida waa in loo bartaa sidii kala waxaan lahaa siyaada ay keentay iyo saamiga sheerkeeda iyo safkeeda aan buuxin ee saqiirkeeniya kabiir soo kaca Soomaaliya isimkeeda aan qaadane sidii kala waxaan lahaa siin iyo birleer shirkadahan wada surtee siin iyo birleer shirkadahan wada suree salaanka hawada ku xiro suuqoodiisana u kacay Somtel inay ugu santaho saaxiibkee tahay bulshada su'aaliba kama jirto saxiix weeye hadalku ya sida waa in loo bartaa sidii kala waxaan lahaa siyaada ay keentay iyo saamiga sheerkeeda iyo safkeeda aan buuxin ee saqiirkeeniya kabiir soo kaca Soomaaliya isimkeeda aan qaadane sidii kala waxaan lahaa Soomaalida socodka dheer wax soo saar ugu jirtee Soomaalida socodka dheer wax soo saar ugu jirto saacadaheeni waqtiga sarifka intay gasheen santig sikinadii suuq u furay Somtel inay ugu santaho saaxiibkee tahay bulshado dhammaan loo sacabtumo sareeda ay bixinta qaan su'aaliba kama jirto saxiix weeye hadalku ya sida waa in loo bartaa sidii kala waxaan lahaa
siyaada ay keentay iyo saamiga sheerkeeda iyo safkeeda aan buuxin ee saqiirkeena iyo kabiir soo kaca Soomaaliya isimkeeda aan qaadane sidii kala waxaan lahaa sifaadkay wuxuu wado sifaadkeed howlihiyo sanadahan ay wadaa salkoodii lagu dhargo subag iyo sarar lagliya sunuun baa laga helo suuqgeyntii beeca iyo iibkii bay sahashayo sadburin bay noo tahay sokeeyaha dhiiranoo waxsiinta aan seegin iyo samtel inay saafi tahay su'aaliba kama jirto saxiix weeye hadalkuya sidaa waa in loo bartaa sidii kala waxaan lahaa siyaada ay keentay iyo saamiga sheerkeeda iyo safkeeda aan buuxin ee saqiirkeena iyo kabiir soo kaca Soomaaliya isimkeeda aan qaadane sidii kala waxaan lahaa moobilkayga aan sitaan simkeedii galiyayo Soomaalida gudaha iyo si wixii dibadda sare saacado aan mirirka harin hal santiyood ku hadasha somtel inuu gaar u yahay su'aaliba kama jirto saxiix weeye hadalkuya sidaa waa in loo bartaa sidii kala waxaan lahaa siyaada ay keentay iyo saamiga sheerkeeda iyo safkeeda aan buuxin ee saqiirkeena iyo kabiir soo kaca Soomaaliya isimkeeda aan qaadane sidii kala waxaan lahaa somtel sida samafalkii inay noo saacido saqiirada saboolkii liita iyo saqiirka ay korinta taqaan saxiix weeye hadalkuya sidaa waa in loo bartaa sidii kala waxaan lahaa siyaada ay keentay iyo saamiga sheerkeeda iyo safkeeda aan buuxin ee saqiirkeena iyo kabiir soo kaca Soomaaliya isimkeeda aan qaadane sidii kala waxaan lahaa shirkadahan kala socdee sirtii ganacsiga barto suuqoodii sare u kacay somtel arkaya siciin baynoo ahaydo sinaan soor loo cuniyo samaan guud iyo wanaag saacad kama seexanide saburu allaha xaqa asadkii uu siiyay bay sir la'aan noo soo wadaya somtel waa inaan sugno ee in ruux seegaba ma aha sidii kala waxaan lahaa siyaada ay keentay iyo saamiga sheerkeeda iyo safkeeda aan buuxin ee saqiirkeena iyo kabiir soo kaca Soomaaliya isimkeeda aan qaadane sagoontiyaye warkii Soomaalida maanta iyo safkaygan ila dhashiyo sokeeyaha ila dhasho salaamu calaykum jamacseetihiin saaxiibaya ya Allah suugaantu waa guun waa hadal aan gaboobin gugii عريس عيسى كارشة ابن حريستي جناح كورابية أيو دب نو حسوسية محمد عبد الله علمي أفكي سمالب يعانب اللقو قبي انت تلمامو صفو أو صحيح أيو كبحي صمتل مركلنا xubnaha golaha wasiirada dawladda federaalka dalka Soomaaliya in aan magaca sharafta badan ee wasiiradeena dawladda federaalka Soomaaliya aan ku soo dhaweeyo wasiirka yaga wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka Soomaaliya xildhibaanka yaga Maxamed Cabdi Xayi